dumarka waxaa laga abuuray feerta ninka lagama abuurin madaxiisa si ay ugu sareyso lagama abuurin cagtiisa si uu ugu istaago waxaa laga sameeyay dhinaciisa si ay ugu dhawaato gacantiisa hoosteeda si uu u xafido wadnihiisa agtiisa si uu u jeclaado haddaba ragow jeclow goortii ay ka bato shaahaaga waxay rabtaa kaliya inay hubiso inuu si fiican kugu dhadhamaayo jeclow goortii ay kugu dhiirigeliso inaad tukato waxay rabtaa inaad jannada ku kulantaan jeclow goortii ay ku weydiiso inaad carruurta la ciyaarto waxay rabtaa inaad aabbanimo dareento jeclow goortii ay masiirsan tahay waxa rag dunida jooga aday kaala soo baxday jeclow goortii ay ku weydiiso inay buuran tahay fikraddaada ayaa muhiim u ah u sheeg inay qurxan tahay jeclow goortii ay cunto karinteeda ay liidato aad bay dadaal iyo iskuday u samaynaysaa jeclow goortii ay saacado ku qaadato inay isoo diyaariso waxay rabtaa inay kula muuqato teeda ugu wanaagsan jeclow goortii ay iska ilmayso sabab la'aan ha weydiinin u sheeg inay wax kasta hagaagayaan jeclow goortii wax kasta aad samayso aysan farxad gelin way dhacdaa waana laga gudbaayaa jeclow goortii ay kuu sheegto sida gaariga loo kaxeeyo waxay kula rabtaa kaliya badbaado jeclow goortii ay kula doodo waxay rabtaa in xaaladda idin hagaagsanaato labadiinaba jeclow goortii dabeecaddeeda isyara bedesho in ka badan baad leedahay xigmad iyo degnaan ayaad ku bedeli kartaa jeclow goortii ay kuu soo iibiso macawiis aadan jeclaysan u dhool caddee una sheeg inay tahay wixii aad weligaa rabtay dhammaan kuwaani waxay qayb ka yihiin dabeecadaha dumarka haweenku waa qayb ka mid ah noloshaada xushmee xanaanee oo xaqdhowr haweenku waa qayb ka mid ah noloshaada xushmee xanaanee oo xaqdhowr